wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ayaa maanta soo gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer. wafdida uu hogaaminayo wasiirka oo ka mid ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ayaa lagu soo dhaweeyay oo hoos taga degmada Qoyta ee gobolka Togdheer. waxaana wafdida soo dhaweeyay maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibrahim Hero iyo barasaabka gobolka Togdheer, kuwaas oo ugu horreyntii u mahad celiyay wasiirka isla markaana sheegay inuu qayb weyn ka qaadan doono diiwaangelinta la filayo wacyigelinta la filayo inay ka bilaabayso magaalada Burco. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirada la socday ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka maaliyadda, gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha, agaasimayaasha iyo wafdiga culus ee soo gaaray gobolka Togdheer. waan soo dhaweynaynaa mudane wasiir adiga iyo wafdigaagaba, isla markaana u socda hawlaha guud ahaan gobolka iyo arrimaha doorashooyinka diiwaangelinta. marka waxaan ku soo dhaweynaynaa anagoo madaxdii gobolka oo dhan oo kala duwan, gobolkii oo nabada idin diyaara wanaagsan, gobolkaagii wasiirka gobolka Togdheer gudoomiye waan ku soo dhaweynaynaa mar labaad. marka hore ilaahay baa mahad leh, Allah inoo suurto gashay maanta inaan soo dhaweyno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Maxamed Kaahin Axmed iyo wafdiga uu hogaaminayo ka kooban wasiirada, gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha, xildhibaanada, xubnaha kale ee xisbiga. dhammaantiin mudane wasiir, farxad bay noo tahay inaan gobolka Togdheer ugu soo dhaweyno. insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa safarku waa safar khayr qaba, waqtigiisana wuu ku soo beegmay wasiir, annagoo idin sugaynay idin naawilaynay. insha Allah tacaala u diyaargarowga diiwaangelinta kaadh qaadashada iyo doorashooyinka iyo xog ogaal noqoshaha heer gobol. insha Allah tacaala waan idinka mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. mudane wasiir ku soo dhawaada adiga waftigaagu gacmo furan, qalbi furan, soo dhaweyn wanaagsan. insha Allah tacaala wixii kale warbixina iyo iswaraysiya insha Allah tacaala. gabagabadina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed ayaa u mahad celiyay madaxda gobolka. marka ugu horeysa waxaan uga mahadnaqayaa sida fiican ee diirane halkan karasharka loogu soo dhaweeyay in gobolka Togdheer inuu barwaaqaysan yahayo uu sanadka roobka saan u helayna marka Burco timaada caanaha laga gartaa sida ay u yaaleen. marka taana aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. aniga iyo waftigan wada soconnaa, waxaan u soconnaa arrimihii diiwaangelinta. waa la socotaan diiwaangelintii 28 bishan ayay dalka oo dhan ka furmaysaa. marka brogaraamka aynu ku shaqaynayno iyo qaabka diiwaangelintana waa laydin soo gaarsiiyey. xafiisyadii markaynu tagnayno brogaraamka idin samaynaynaa aynu baahinaynaa. diiwaangelintani waa gobolkii Togdheer oo dhan ee gobol doorashada, iyadoo la raacayo sharciga doorashada dalka. gobollada dalku waxay isugu soo ururaan 6 gobol doorasho. waa Awdal, waa Maroodi Sheekh, waa Saaxil, waa Togdheer, waa Sanaag, waa Sool iyo 23 degmo doorasho. marka waxaa la rabaa sanadka in la muujiyo gobol waliba inuu maxaanku dhahdayay diiwaangelinta guud ahaan dalka laga qayb galo, gobol waliba uu ka qayb galo, gobolka Togdheerna uu ka qayb galo, oo gobol walibana wuxuu muujinayaa diiwaangelinta tiradiisa. Togdheerna dadtaasay ka mid tahay inay tiradeeda muujisaa. qaabkii waxoo dhanna waynu isla arki doonaa. diiwaangelintu tirada goobuhu intii hore way ka yar yihiin, laakiin waxa badan tirada maxaanku dhahdaayay tirada waqtiga ayaa la dheereeyey. marka waxaynu doonaynaa in si fiican gobolka uga qayb galo. qarankoo dhanna waynu wargelinaynaa. annaku intayadan halkan socotaa qolada reer Burcaanu wada nahay. marka waxaynu doonaynaa reer Burco gobolka in la diiwaan geliyo
dadka in la diiwaan geliyo iminka doorashadii lama joogo waxaa la joogaa diiwaangelinta cid waliba waxay xaq u leedahay xilliga doorashada la gaadho inay maxaanku idhaahdayey cidduu doonayo uu codeeyo laakiin iminka waxaynu leenahay oo qaranku xaqiga noogu leeyahy inuu qof waliba isdiiwaan geliyo waa ka war haysaan shalaytaa la soo bandhigay la daahafuray arrintii diiwaangelinta dhammaan xusbiyadii hore 3 xusbi qaran ee hore iyo 10 urur siyaasadeed ee dambe 13 kuba goobta waa la wada joogay waxaa loo soo bandhigay qaabka sidaasaa la isla ogolaaday guddigood ururadiina iyo xusbiyadii qarankuna way wada joogeen waxaynu doonaynaa markaa aynu wada guntano innakuna wixii brogaraama haddii la yidhaahdo xafiiskii gobolkan isugu imanayna cabdiraxmaan triike telefishinka horyaal magaalada burco